bakaabo labka dhinac istaago qof kastoo nasiigana ma dhaxlaayo guushe inta dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa yaradii qaarankay duuxii dalkaygiyo dumucdaya xooggii aan ku gaaranaynay dhalinyaradii qaarankay duuxii dalkeeniyo dumucdaya xooggii aan ku gaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin inta dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa digwa barbaarsho waa dhalaan gardaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee digwa barbaarsho waa dhalaan gardaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee waana dhidibka kaabo labka dhinac istaago qof kastoo nasiigana ma dhaxlaayo guushe waana dhidibka kaabo labka dhinac istaago qof kastoo nasiigana ma dhaxlaayo guushe inta dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra
dhaqanka baasno ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayowlay dhegaysta dimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baasno ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa dhalinyaradi qarankaay duuxii dalkaygiyo dumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay dhalinyaradi qarankaay duuxii dalkeeniyo dumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin inta dhimir fayowlay dhegaysta dimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baasno ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayowlay dhegaysta dimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baasno ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa dig waa barbaarsho waa dhalaan gardaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee dig waa barbaarsho waa dhalaan gardaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee waana dhidibka kaago labka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe waana dhidibka kaago labka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe inta dhimir fayowlay dhegaysta dhibmagaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baasno ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayowlay dhegaysta dimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baasno ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayowlay dhegaysta dimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baasno ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa
dhallinyaradii qaarankay dhuuxii dalkaygiyo dhumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay dhallinyaradii qaarankay dhuuxii dalkeeniyo dhumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin inta dhimir fayuulay dhagaysta dimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayuulay dhagaysta dimmadaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa dig waa barbaarsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee dhaadig waa barbaarsho waa dhallaan gardaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee waana dhidibka kaago labka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe waana dhidibka kaago labka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe inta dhimir fayowlay dhagaysta dhibmagaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayowlay dhagaysta dhibmagaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayowlay dhagaysta dhibmagaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa dhallinyaradii qaarankay dhuuxii dalkaygiyo dhumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay dhallinyaradii qaarankay dhuuxii dalkeeniyo dhumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsiga ugu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa
sanbalada laga qaaday oo la falgalo ku cadeeyay yaaba cadeyn buuxda intaasaba nagu filan dhacdooyin kale inaan ku sii kabnaa aan u baahanahay ma jirtaba waayo cadeyn buuxda aan ku haynaa oo uu ku mudan karo dil maxkamaduna waa mahadsanta soo gabagabay ya soo gabagabayaa marka gabagabaya maadaama dembigaanu si buuxda ugu cadeynay maadaama ay si fiilxun u dileen gabar 13 jira maadaama ay kubsadeen maadaama ay afduubeen maadaama amniga ay khalkhal geliyeen maadaama dhaqankii suuban ay u gafeen maadaama islaamnimada ay ku xadgudbeen maadaama dembiga aanu ka hor cadeen maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa sidii Caaisha u dileen oo maxkamadda darajada koowaad u xukuntay inay ayadana ku ayido xukunkii maxkamadda darajada koowaad oo ay ku xukunto dil maxkamadduna waa mahadsanta sanbalada laga qaaday oo la falgalo ku cadeeyay yaaba cadeyn buuxda intaasaba nagu filan dhacdooyin kale inaan ku sii kabnaa aan u baahanahay ma jirtaba waayo cadeyn buuxda aan ku haynaa oo uu ku mudan karo dil maxkamadduna waa mahadsanta soo gabagabay ya soo gabagabayaa marka gabagabaya maadaama dembigaanu si buuxda ugu cadeynay maadaama ay si fiilxun u dileen gabar 13 jira maadaama ay kubsadeen maadaama ay afduubeen maadaama amniga ay khalkhal geliyeen maadaama dhaqankii suuban ay u gafeen maadaama islaamnimada ay ku xadgudbeen maadaama dembiga aanu ka hor cadeen maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa sidii Caaisha u dileen oo maxkamadda darajada koowaad u xukuntay inay ayadana ku ayido xukunkii maxkamadda darajada koowaad oo ay ku xukunto dil maxkamadduna waa mahadsanta sidaa arkaysaan dhammaan marka horeeto ummadda islaamka ah oo isugu timi meeshaan madax iyo shacabba waxaan ku salaamaynaa salaamta islaamka waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib إن شاء الله تعالى محكمة واحد من الجميع دونتا كيس كان تحليل كيسي قابل تحليل هاي يو كنا واقدي حكم كان واجب كقوة هنا كسر صادق قضية الله عن هذا والله يبارك waxaanu maxkamaddu isku dayday in ay isla maantay go-aan ku dhawaaqdo laakiin waxay noqotay mid aan suuragal ahayn sidaa darteed maxkamaddu waxay go-aankeeda ku dhawaaqi doontaa إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم ولا تقولن لشيء إني فاعل غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت آيات القرآن كابين أمر سين إنه مشيئة إلهي إنه وحقبت كان فعل كان يقول كان وأنت بقى إنه شرط وغدر وحتى مركا بريتو ومالين أحد صدح ساعة والصبح نمو أيال لسوء علين دونا محابيستا مركع كبعدنا محكمة وحي كل واقع دونتا حكم كذا أي كسو ساري سو كيس كان إلهي نوحان كبرينا سيدا سوافك إن إلهي نوافجيو mid xaqana ilaahay naga soo saaro waana salaamatihiin maxkamadduna way noo xiran tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta dhimir fayuula dhagaysta kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa
barbaarsho waa dhalan gartaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee daadig waa barbaarsho waa dhalan gartaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee waana dhidibka kaago labka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe waana dhidibka kaago labka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe dimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa inta dhimir fayowlay dhegaysta dhib magaya haweenku ee ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhiicinaa dhallinyaradii qaarankay duuxii dalkaygiyo dumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay dhallinyaradii qaarankay duuxii dalkeeniyo dumucdaya xooggii aan ku dhaaranaynay kuwa dumarka dhaawaca kufsigowgu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin kuwa dumarka dhaawaca kufsigowgu dhiirada miyan gabar la dhaalano hooya naasu soo dhigin